dowladda mareykanka bishii December ee sanadkii tagay 2018 ayaa si rasmi ah u aqoonsatay hay'adda Soomaali Baraawe Foundation oo fadhigeedu yahay gobolka Atlanta Georgia ee dalka Mareykanka. Hay'addan marka magaceeda la soo gaabiyo ee loo yaqaano SPF ayaa ka howlgasha magaalo xebeedka Baraawe iyo nawaaxigeeda ayaa had iyo jeer u taagan inay caawiso dadka danyarta ah. Soomaali Baraawe Foundation tan iyo muddadii la aasaasay ayaa waxaa mashaariicyo kala duwan ka hirgelisay magaalada Baraawe sida masaajido iyo dugsiyo Quraan lagu barto, sida ii xaqiijiyay mid ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaali Baraawe Foundation. Inta badan hay'addan waxay caawisaa dadka danyarta sida carruurta agoonta, waayeelada aan awoodin nolol maalmeedkooda iyo dadka naafada ah. waxaana isku dayay in aanu la xiriiro Maxamed Kuulo Sayid oo ah wakiilka guud Soomaali Baraawe Foundation oo u qaabilsan qaaradda Afrika oo haatan ku sugan xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe ayaa iga warbixiyay ujeedka loo aasaasay hay'addan iyo waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay jirtay. Soomaali Baraawe Foundation ujeedka loo aasaasay waxay ahayd markaynu aragnay baahida jirta deegaanka ama degmada aynu ku noolnahay, baahida ka taagan darteed ayaa loo aasaasay. marka baahidaas jirta darteed aanu aragnay ayaan waxaan sameynay wax la yiraahdo groupkaas oo aan ugu magac darnay golaha Soomaali Baraawe Foundation. groupkaas oo ay ku wada jiraan walaalaha jaaliyadaha dibadda meel kasta ay kala joogaan iyo kuwa wadanka gudihiisa jooga. muddo ilaa iyo 10 bilood ama 9 bilood ayay 11 bilood meelaas ayay ku shaqeynaysay groupkaas. ka bacdi ayaynu aqoonsi waxaynu ka helnay wadanka Mareykanka bisha 12aad bisha 30keedii 2018. marka ujeedka aynu u aasaasnayna tan ugu weyn waxay ahayd walaalaha ku tabaalaysan deegaanka sida kuwa curyaaminta, agoomanka, indhoolayaasha, waayeelada iyo naagaha tabarta daran ee uurka leh sidii wax loogu qaban lahaa. taasna maasha Allah waanu ku guuleysanay. ilaahay idinkiisa horumar weyn ayaynu ka gaarnay. taas ayaa loo aasaasay. muhiimada koowaad oo loo aasaasay waa midaas. waxyaalo badan ayaa u qabsoomay golaha Soomaali Baraawe Foundation. waxyaalihii u qabsoomay waxaa ka mid ahaa waxaynu aad iyo aad howlo waaweyn aynu ka geysanay bishii barakeysneed ee Ramadaanka ama soonka oo aanu quudinay ama aanu raashin siinay 180 qoys ayaynu raashin siinay. waa midda ugu weyneed oo aanu wax ka qabanay ama dardargelintii ugu weyneed ee aynu ka qayb qaadanay waa taas. midda labaad waxaynu lacago gaarsiinay dadyow ku waxyeeloway ama se dhibaato ka soo gaartay qarax ka dhacay magaalada. dad maata oo wax ka soo gaaray oo isbitaalada ayaynu ugu tagnay oo waxaynu gaarsiinay lacago yar yar oo aan sidaa u badnayn si ay caano iyo nafaqo uga dhigtaan. tan kale waxaynu wax ka qabanay goor walba ama bil walba waxaa lanoo soo sheegaa qoysas dhibaysan ilaa iyo 10 qoys ama 25 qoys oo dhibaataysan. taasna waxaynu u sameynaa inaynu lacago aan ka aruurino walaalaheena jaaliyadaha jooga. lacagtaas markay aynu aruurino ilaa 25 qoys ama 15 ama 10 qoys wixii ay lacagtaasi gaarto aan raashin ugu gadno oo aan u qaybino goor walba iyo waqti walba ilaa iyo haatanna taas waa aynu ku wadnaa. midda kale waxaynu booqannaa isbitaalada sida dadka oo xanuunsan. qaar dadkaasi isbitaalada waaba ay ka baxeen, qaarna waqtigoodii soo dhamaaday oo iska dhintay waa jiraan oo xamar loo qaaday. dadkaasna taakuleen lacago ah ayaynu siinaa. lacagahaas qaar oo aan ka aruurinay degmada dhexdeeda
degmada aan ku noolnahay dhexdeeda iyo lacago noogu timid dibadaha intaba way isugu jiraan iyo taakulaynta sida gaari aynu u gadnay hadda golaha Soomaali Baraawe Foundation gaarigaasna lagu qaado dadka tabaalaysan ee aan waxba haysan oo lagu taakulayo gaarigaas away Sayid Abu Mudumbara News magaalada Carcassonne ee wadanka France